بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkan caawa wax yar inaan isdul taago waxyaabo aad aan ula yaabay oo saxaafadda ku arkay maanta way ka mid tahay 20 February oo la yiri waxa loo asteeyay maalinta dhalinyarada beesha dhexe waa si wanaagsan haday beesha dhexe maalin sameysteen oo maalinta SNM dhalinyarada SNM ay sameysteen waan ku hambalyeynaa laakiin maaha in ummadda dembi laga galo shacabka reer Awdal State iyo ummadda ku nool waqooyiga in dembi laga galo oo la yiraahdo maalin baa jirta aan wada leenahay oo maalinta dhalinyarada SNM hadii maalinta lagu aasteeyo la yiraahdo 20 February waa maalinta dhalinyarada Soomaaliya maxaa waqooyiga Soomaaliya hadii la yiraahdo ummadda reer waqooyiga dembi laga galaya ninka dhalinyarada ku nool gobolka Awdal iyo ninka dhalinyarada ku nool Sool iyo Sanaag waa dembi bay ku taanlee Somaliland wax la wada leeyahay ma taariikh la wada leeyahay Somaliland male beel kastaaba ama qoomiyad kastaaba ama qabiil kastaaba wuxuu leeyahay maalmo u gaar ah maalintiisa inuu xorriyadiisa ku xusto waxa uu xusanayo ayaa u qurux badan laakiin maalin la sameeyo oo la yiraahdo maalinta dhalinyarada reer waqooyiga ama Somaliland ba hadan nahno ma jirto waa been baa la isku sheegayaa ninka reer Awdala ee u dabaaldega maalinta 20 February waa maalinta dhalinyarada Somaliland waa maalinta dhalinyarada SNM yiraahdo oo SNM baan kamid ah ninka yiraahdo waa nin been sheegay isaga laftiisu waxaan leeyahay reer Awdal dan ku horeeyo waxaan leeyahay reer Awdalow inuu ma taalo inaan u dabaaldegno 20 February waa maalinta dhalinyarada SNM maalinta dhalinyarada SNM meel aan ka soo galno iyo waxaan kaga jirno iyo waxaan ka ognahay midna ma jirto waa jireen shakhsiyaad ku jiray maalinta dadkii kacay laakiin halkay joogaan maanta halkay Somaliland kaga jiraan ma la isweydiyo dadkii halkay Somaliland kaga jiraan waa la isweydiyo way waxaan leeyahay waxaanu ku xusi karno oo aynu la leenahay dhalinyaradaasi ma jirto anigu waxaan ahay muwaadin ka soo jeeda dhulkaasi la yiraahdo Somaliland uma arko inay maalintaasi tahay maalin aan la leeyahay ninka ku nool Burco ninka ku nool Salaascaanood ninka ku nool mataqaana Saylac lama lihi sababta aan leeyahay waxa weey taariikh aan waxba ka ogeyn lama yeelan karo taariikhda waxa la sameyn karaa waxa weey marka wax ummaddu ay isku ogtahay oo taariikhya oo soo martay ummadda ay jirto laakiin wax ummad qoomiyad gaar ah soo martay beesha dhexe gaar u tahay taasi waa waxay beesha dhexe gaar u leedahay haday kacdoon tahay oo iyagu sameeyeen kacdoonka iyaga sameeyay hormuud ka aha laakiin beel ku raacsanayd oo dagaalka la gashay oo Ethiopia la joogtay ma jirto marka waxaan leeyahay reer Awdal horta wax inagu aan naga khusayay arrintaasi ma jirto inoomana taalo in loo dabaaldegaana waa xaraan weey waxaan lahayn in aan u dabaaldegno oo aan calooshooda u shaqaysan noqono la inoogama baahna taasaan leeyahay reer Awdal waxaan kala rabaa in wax yar aan la u sheego Faysal Colo Waraabe oo ka arrintaasi ka hadlay oo sheegay inay dhalinyarada ama maamulka maxaan ku raad beesha dhexe dadka ku nool dhalinyarada beesha dhexe ay ka raysteen dawladii Siyaad Barre oo caburis iyo cagajugleyn iyo mataqaana iyo dhaqaale xumo iyo siyaasad xumo iyo waxbarasho xumo iyo ku haysay habeenkii in guriyaha lagala baxo inay ka raysteen waxaan u sheegayaa Faysal Colo Waraabe waxaan leeyahay ninka intii aad ka dacweysay maanta lagu hayo bal ka waran ninka habeenkii ay RRU gurigiisa u soo dhacsaqda dhexe ku soo dhacsa ka waran ninka habeen walba gurigiisa la baaranay ka waran ee RRU baaranas ninka habeen iyo maalin jeelka ku jira ka waran waxaan la soconaa in xataa niman xasaanad haya oo maamulka u shaqeeya qaar xubno kale ka qaar xilal ka haya oo yiri waxaan xaq maaha waxa jiraana xaq maaha wixii dhacayna waa sida wax runta sheegay oo xaqaaqa jira ka hadlay inta kale taxaabay waxaan ognahay in qof kasta oo ka soo horjeesta maamulka SNM jeelka loo taxaabayo dadkaasi waxay galabsadeen ma jirto waa qof runta sheegay oo leh waxaan xaq maaha Somaliland beel baale ninka inta ay la xidhaya hargeysan taa lagu xidhay jirinba Siyaad Barre wala caay jiray xitaa cid wax saa u xidhaysay ma jirin beesha dhexe iyada soo xidhaysay Faysal baa kamid ah dadka xidhay jiray Faysal baa waxa lagu xantaa inuu ahaa basaaskii dhalinyaradaasi la xidhay ka dambeeyay xarigooda maantana wuxuu ku doodayaa SNM baanu nahay SD gudahaan ahoo riibaan beri gees ka riday buu ku doodayaa
marka waxaan leeyahay faysal dhibaatada lagu hayo ee arargii ku hayso gobolka awdal ee ku hayso shacabka reer awdal haddaad ogaan lahayd maanta maad tidhaahdeen 20 February waxaan u asaynaa maalinta SNMta marka waxaan leeyahay faysalow waa inaad ogaato haddaad shalay dhibaato ku jirtay maanta in dadka dhibaato ku jiraan taasi waa taa weeyi guntiga gabagabadiina waxaan leeyahay reer awdalow inama taalla inaan u dabaaldegno 20 February ragga ka hadlay meeshaas inaan hadalka uga dhageystina waxaan u arkay rag calooshada oo shaqaystayaala oo shilinkooda iyo biilkooda soo ridanayay